qof kasta wuxuu marayaa wixii uu kasbaday waana inay aqbalaan aayahooda. waxaana meesha ku jaasaya nin waalan oo ah ninkii cuntada u karin jiray. in qof waliba uu ku shaqaynayo mansabiyadiisa horay loogu qoray mana dhegaysan doono isaga. sanadku markuu ahaa 3000 saynisyahano ayaa damcay inay cimilada qaboojiyaan, balse waxay waxyeelo u geysteen oogada sare, taasi oo sababtay dhimasho iyo inuu dhulku gebi ahaanba baraf isku bedelo. in yar oo nasiib leh oo tareen raacaya ayaa badbaaday dadka. tareenku waa inuu socdo mar kasta, balse qolada saaran tareenka qaybta dambe ayaa xaaladoodu ka sii daraysaa. tareenku wuxuu u qaybsan yahay qaybo kala duwan. xagga hore waa dadka hodanka ah, gadaalna dadka fuqurada ah. ilaalada ammaanku waxay si xun ula dhaqmaan dadka saboolka ah oo keliya iyagoo cunto ahaan u siiya canjeero. dadka qaarkood xaaladan ma aqbali karaan, balse wax ay ka qaban karaan ma jirto. maalin maalmaha ka mid ah waxay heleen fariin sir ah oo u sheegaysa nin lagu magacaabo nin Kongsu. waa khabiir dhanka amniga ah, balse hadda ku xiran xabsi. Curtis oo uu heliyo hogaamiyihiisa Gilliam ayaa qorsheynaya inay ninkaas soo saaraan, waayo waa qofka keliya ee ka furi kara qaybaha hore. Gilliam wuxuu u sheegay inay u baahan yihiin inay injiinka tareenka kaasi oo halka hore ku yaala ay la wareegaan. Curtis wuxuu ula dhaqmaa Gilliam sidii aabe iyo hogaamiye karti leh, waxaanu jecel yahay in uu matoorka maamulo isagu halkii uu ka maamuli lahaa Wilford oo ah kabtanka hadda. Edgar waa wiil yar oo aad ay isugu dhow yihiin Curtis oo inta badan ka hadla qorshayaashiisa kacdoonka, waxaana uu jecel yahay in Curtis uu maamulo tareenka, balse Curtis kuma raacsana fikirka. dhowr ilaalo ah ayaa yimid tareenka qaybta dambe oo carruurta ka kaxeeyay halkaa baadhitaan darteed, halkaasi oo waalidka la qasbayo. Timmy iyo Andy ayaa la kaxeeyey. Andy aabihiis Andrew wuu xanaaqay oo weeraray wasiiradda Mason oo uu kab ku tuuray, laakiin waa la ciqaabayaa isaga oo mid ka mid ah gacmihiisa dibadda loo saaray barafka. Mason waxay la hadlaysaa dadka kale iyadoo ka cadhaysan kabta, una sheegaysaa inaanay isku dayin wax nacasmino ah. waxay tidhi qof kastaa wuxuu marayaa wixii uu kasbaday, waana inay aqbalaan aayahooda. haddii kale natiijadu waxay noqon doontaa burbur. cududa Andrew waxaa saamaysay dhaxan oo in laga gooyo ayay noqotay. Gilliam waxa uu weydiistay Mason in ay fariintiisa u gudbiso maamulaha Wilford oo uu rabo inuu la hadlo. Curtis wuxuu sheegay inuu u fiirsaday ilaalada oo u malaynayo inaanay rasaas ku jirin qoryahooda. waxa ay qorsheeyeen dagaal si ay ugu gudbaan qaybta hore oo ula wareegaan injiinka tareenka. dagaal qorshaysan ayay ku qaadeen ilaalada, halkaasi oo ay kasoo gudbeen qaybta u dambaysa tareenka. waxay kasoo bixiyeen xabsiga injineerkii Mr. Kim. waxa uu ka furay albaabka u horeeya, iyagoo dad raadinaya ayaa ay markii u horeysay arkeen daaqadda iyo bannaanka. wax nolol ahi kama muuqato oo dhulku waa wada baraf. albaabka xiga ayaa laga furay, waxaana meesha ku jaasaya nin waalan oo ah ninkii cuntada u karin jiray. waxa ay ogaadeen inuu ninkan waalani uu canjeerada uga samayn jiray cayayaan. isagoo uu injineerku ku mashquulsan yahay sidii uu u furi lahaa albaabka xiga, ayaa waxaa hal mar qaylisay xaaska injineerka oo ah gabadh sii aragta waxa dhici doona. balse albaabku waa uu furmay, waxaana ka hor yimid ciidan hubaysan oo ay halkaa isku gumaadeen. dagaal culus kadib Edgar wuxuu qabtay habartii maamulka oo uu afduubay. waalidkii caraysnaa ayaa habarta weydiiyey awlaadoodii halka ay geysay, waxaana ay sheegtay inay booska Wilford ay ugu geysay halka hore oo ay ogashahay inay iyaga kaxayso una geyso Wilford. habartii ayaa kaxaysay, waxaana ay ku arkeen qaybo cajiib ah oo leh qolol raaxo iyo cunooyin aanay arkin muddo dheer. si kastaba ha ahaatee, tareenka daaqadiisa waxaa ka muuqata nolol la'aanta bannaanka taala iyo barafka uu adduunku isku beddelay. Curtis wuxuu ku qasbay habartii inay cunto canjeeradii ay ku cuni jireen qaybta dambe. iyagoo ka gudbaya qaybaha dhexe, waxa ay dhex mareen qayb carruurta lagu xanaaneeyo. waalidkii ayaa carruurtoodii ka fiirinaya, balse kuma jiraan. macallimada ayaa u daaraysa carruurta fiidiyo ku saabsan Mr. Wilford. waxay ku sharaxaysaa inuu yahay isagu kan dhisay tareenka oo uu ogaa cawaaqibka isbeddelka cimilada. tareenkan uu dhisay waxa uu ku wareegayaa adduunka xawaare aad u sarreeya, isagoo aan hal daqiiqo istaagaynin, taasi oo u saamaxaysa in ay ka badbaadaan dhaxanta. waxay kaloo tusisay dhowr qof oo baraf noqday inta ay isku dayeen inay tareenka ka degaan. fiidiyowga kadib, ukunta xafladda sanadka cusub ayaa la bixinayaa,
laakiin waxa ay noqotay shirqool iyadoo waardiyayaashu hub qarsoonaa ku weerarayaan dadka gadaasha ka yimid mid ka mid ah xulufada Mason ayaa dilaya odaygii Gilliam Curtis ayaa cadhooday oo islaanta dilaya isaguna waxa ay horay ugu sii socdaan qaybta hore iyagoo arkaya sida nolosha caadiga ah ugu nool yihiin dadka qaybaha hore saaran dagaal badan kadib waxaa dadkii gadaal ku noolaa ka soo haray injineerkii xaaskiisa iyo Curtis waxaana ay soo gaareen qaybta ugu horeysa halkaasi oo uu diiday injineerku inuu furo Curtis iyo injineerka ayaa isku xanaaqay halkaasi oo dagaal kadib uu Curtis uga sheekeeyay nolosha ay ku noolaan jireen qaybta dambe wuxuu u sheegay inay gaajo u dhiman gaareen oo ay iyagu iscuneen iyagoo dilay kuwooda taagta daran halka marka ay marayso waxaa soo baxday gacan yaraha Wilford taasi oo Curtis u sheegtay inuu Wilford u yeerayo isaga marka Curtis yimaado gudaha qolka Wilford ayaa ku amaanay waxa uu Curtis sameeyay wuxuu u sheegaa sida nidaamku u shaqeeyo gudaha tareenka waxa uu muujinayaa in ay tahay in ay ilaaliyaan wax walba oo ay ku jiraan sahayda cuntada biyaha iyo sidoo kale tirada dadweynaha waa sababta ay kacdoonada u sii wadaan si ay dadku isku dilaan oo ay u yareeyaan tirada dadweynaha gudaha tareenka saaran waxa uu u sheegaa in odaygii dhintay ee Gilliam uu isaga la shaqayn jiray oo wax walba uu Curtis iyo odaygu wada qorsheeyeen ay ka mid ahayd qorshaha weyn ee uu isagu dejiyay Curtis ma aaminsana balse Wilford waxa uu la hadlay qolo tareenka qaybta dambe saaran u sheegay inay dilaan 70% bulshada Wilford wuxuu tusay Mr. Curtis injiinka tareenka oo uu u sheegay inuu isagu kala wareego xilka waxa uu sidoo kale tusay meesajyadii sirta ahaa ee halka dambe ay ka heli jireen in uu isagu qori jiray waxa uu u sheegay inuu xilka kadib ilaaliyo dheelitirka nolosha tareenka maadaama ay daruuri tahay Curtis wuxuu u muuqdaa mid aaminay Wilford waxaa soo oroday xaaskii injineerka oo tusisay Curtis caruurtii la soo kaxeeyay oo ku jira meel hoose iyagoo qabanaya shaqo adag oo adoonsi ah Wilford waxa uu sheegay in meeshaas cid geli karta aanay jirin oo loo baahnaa caruur meesha ka shaqaysa Curtis wuxuu ka soo saaray ilmihii yaraa meesha laakiin gacanta ayaa ka goday dhanka kale ilmihii labaad ayaa ka soo baxay oo shaqadiisa qabsanaya isagoo iska indhotiraya codsiga Curtis oo ah inuu joojiyo shaqada Wilford wuxuu u sheegay in qof waliba uu ku shaqaynayo mansabiyadiisa horay loogu qoray mana dhageysan doono isaga dhanka kale xaaskii injineerka ayaa gubtay tareenkii oo qarax sababtay Curtis iyo xaaskii injineerka ayaa jirkooda ku daboolaya caruurta aakhirka waxaa kamaradu qabanaysaa cunug yar iyo xaaskii injineerka oo bannaanka u baxay arkayana xayawaan tilmaamaya in nolol dhulka ka jirto subscribe saar si aad u hesho muuqaalo badan oo noocan oo kale ah sii sharagaree linkiga oo la wadaag asxaabtaada si aad u caawiso kanaalka hoos noogu reeb fikirkaaga waad ku mahadsan tahay daawashada